kulanti wanaagsan asxaabay meel kasto oo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad haddaba barnaamijkeena labaad waxaynu kusoo qaadanaynaa akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay xaalada gobolka bariga dhexe dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. haddaba warbaahinta carabta kuwa caalamka waxay aad uga hadlayaan hadal uu saakay sheegay ninka la yiraahdo Trump waliba wadamada carabta aad ayaa looga hadlayaa. waxaa la leeyahay Trump wuxuu weydiistay dowladaha carabta iyo Israa'iil inay lacag bixiyaan, lacagtaas oo ah lacagta aan idinku ilaalinayo waa inaad bixisaan, Iiraan aad idinka ilaalinaya. ani haddaan meeshaan ka tago Iiraan waa imaanaya, waxaa dhan way qabsanaya macna Israa'iil nagtay ka saaraysaa uu leeyahay. marka lacagaa idinku waardiyeyaa. alximaaya waxay u baahan tahay lacag, ximaayadu marka waa ilaalintaasu lacagay u baahanta, marka waa inaad lacagtii iska diyaarisaan. marka carabtii waxay leeyihiin ninka mana ilaaliyaa. horta dadkii social media dowladihii ku jafaayeen carabti waxay leeyihiin ninka lacagba aan siinay hadiiba la siinaaye horta mana ilaaliyaa. muxuu naga ilaaliyaa? saldhigyadiisii ku yaalay gobolka oo wadamada carabta ku yaala maalin walba la holcinaya, kuwii uu ilaashan laayay. marka maxaa lacag lagu siinaya? waa baad caadi. marka ninka waa soo shaqo tagay leeyahay. marka sheekada la yaab kale. haddaba aan idin tuso telefishinka ruushka ee la yiraahdo RT ayaa wuxuu qorayaa warbixin uu leeyahay Trump wuxuu ka dalbaday dowladaha Khaliijka iyo Israa'iil inay bixiyaan lacag lagu ilaaliyo wuxuu lacagta uu ku ilaalinayo Mareykanka inay bixiyaan, taasoo laga ilaalinayo Iiraan iyo sidoo kale ilaalada Mareykanka uu ku hayo marinbiyoodka Hormuz. haddaba sheekada la yaab kale way sii socotay. waxaa la leeyahay warbixinta iyadoo laga jawaabayo weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanka, Iiraan ayaa bilowday inay beegsato saldhigyada military ee Mareykanku ku leeyahay Khaliijka. haddaba isagoo arintaasi ka hadlayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka cad, isagoo sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono sugidda amniga dalalkan sida uu yiri, balse ay tahay inay bixiyaan kharashka adeegaas lagu qabanayo. waxaan rabaa in nala siiyo lacag sababtoo ah waxaan ilaalinaynaa qaybo aad u hodan ah oo dunida ka mid ah. waxaan arintan ku bixinaynaa lacag. Trump wuxuu yiri waxaan lacag ka heli doonaa dalalka aan ilaalinayno sida Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Qatar, Bahrain, Kuwait, Israa'iil iyo kuwa kale. annaga uma baahnin dalalkan, iyaga noo baahan. waxaan leenahay shidaal aad u badan. waxaan soo kala haysanaa shidaalka wadanka Venezuela oo dhawaan aynu qabsanay. dhanka kale Trump wuxuu yiri wuxuu ku dhawaaqay Mareykanku inuu markaa go'doominta saarayo Iiraan oo go'doominta ku sii wadayo. marka ninkan Trump leeyahay dowladii carabta wuxuu leeyahay lacag keena. annaga ayaa aragnay taagi maxaa ka lacagta ku dhiibna waa idin ilaaliyaa. maxaa laga ilaalinaysaa Iiraan oo Iiraan annaga naga ilaalinaysa saldhigyadaada ka ilaasho, saldhigyadaada yaaba nagta laga saarayaa. marka sheekadaas uu keenay ninkii odaga maruu yiraahdo meesha isbaarada anaa lacag ku qaadanay, lacag keena. oday marka meel u socdo iyo meel kale la fahmi waayo, carabtii waa wareereen. marka way aamusayin, cid walba afka haysataa. Netanyahu iyo kooxdiisa xataa waa aamusayin. marka nin walba wuxuu leeyahay Iiraan ay idinka ilaaliyaan. ani haddaan meeshaa ka tago le ka tahay Iiraan waa idin qabsanay kulligii. marka sheekadu halkaasay mare. dhanka kale taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen weerarkii xalay saq dhexe ay bilaabeen inay soo gabagabeeyeen maanta barqadii, oo mar walba ay meel weerarayeen. wuxuu ahaa wareegii saddexaad, 3 habeenoo isku xigta weeraro xiriir ay Iiraan ku qaadayeen. waxay sheegeen inay meelo kala duwan ka burburiyeen Iiraan. haddana waxaa laga baqayaa isla caawa haddana in weeraradii afaraad ay mar kale bilowdaan. haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. taliska dhexe ciidamada Mareykanka wuxuu sheegay inay soo dhamaystireen mawjadii garaacista cusbayd ee lagu qaaday Iiraan. haddaba
taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen weeraradii ugu dambeeyay ay ku qaadayeen Iran iyadoo la sheegay in markaasi ay socotay duqeymahaasu xoogooda uu socday ilaa 5 saacadood taliska dhexe ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in markaa howlgalkaasi lagu baabi'iyay awoodda sida ay yiraahdeen Iran oo markaa dhibaato ku ahayd isu socodka marinbiyoodka Hormuz sida ay sheegeen waaye marka waxay yiraahdeen natiijo wanaagsan ka gaarnay dagaalka 5 saacadood oo xiriir ah duqeynaynay waxaana diiradda saaraynay meelaha Iran ay ka xiri kartay oo ay gantaalaha iyo droneska ka soo tuuri kartay marinbiyoodka Hormuz marka sheekadaas ayaan maanta qabanay yiraahdeen marka ciidanka howlgalkii marka waa soo gabagabeeyay hadda marka waa la nasana caawa noo balano habeenkii la isku soo noqonaa meeshaan habeenkii ilaa aroortii ilaa barqadii jugta la iska gelina kadib waa la kala nasana markay nimankan warka soo saareen Iran iyaduna waray soo saareen waayahay waxa iyaguna isla markiiba war soo saaray ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay yiraahdeen annaguna waxaynu bartilmaameedsanay oo gantaalo ku garaacnay goobo muhiim u ah Mareykanka iyo saldhigga ciidamada cirka Urdun oo halka ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen waxay kaloo sheegeen inay sawaariikh ku garaaceen goobo muhiim ah oo Mareykanka uu leeyahay oo ciidamada Mareykanka ay isticmaalayeen waxayna sheegeen in meelaha ugu muhiimsan ay garaaceen ay ahayd saldhigga ciidamada cirka ee dalka Urdun way marka intaas markay sheegeen haddana waxay soo raaciyeen war kale oo ay leeyihiin maanta weeraradii ay soo qaadeen hal diyaarad ayaynu kala harnay macnaha soo ridnay ay leeyihiin haddaba wakaalada wararka ee Anadolu ayaa waxay leedahay warbixin ay qortay warbaahinta Iran ayaa sheegay goor dhaweyd in markaa la soo riday mid kamid ah diyaaradaha droneska Mareykanka uu leeyahay iyadoo dul maraysay marinbiyoodka Hormuz iyadoo dul maraysay ayaa la soo riday haddaba diyaaradan ayaa nooceeda waxa lagu sheegay inay ahayd MQ-1 oo kamid ah noocyada Mareykanka uu ku dagaalamayay habeenadii la soo dhaafay oo duqeymaha ay kaga qayb qaadanaysay dagaalka lagu hayay Iran way diyaaradda odaga waa laga qarramsaday dhanka kale warbixin guud oo ku saabsan marinbiyoodka Hormuz cidaan iyaga ahayn inaysan halkaa soo mari karin oo aysan amrin ayay ciidamada Iran iyaguna soo saareen goor dhaweyd haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Iran waxay sheegtay inaanay marnaba dib uga noqon doonin go'aankeeda marinbiyoodka Hormuz afayeenka ciidanka Iran oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay goor dhaweyd in ciidanka Iran aysan ka noqon doonin marinbiyoodka Hormuz talaabooyinka ay ka qaadayaan haddaba waxa uu sheegay inaan dib loo furi doonin marinbiyoodka Hormuz oo dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan iyo cadawtinimo Mareykanka uu wado inaysan dhici karin in marnaba lagu furo marinbiyoodka Hormuz haddaba waxay sheegeen wadada kaliya ee lagu furi karo inay tahay marinbiyoodka Hormuz in la ixtiraamo waxa ay ku tilmaameen xuquuqda shacabka Iran oo ah inay iyagu halka maamushaan oo ay ilaaliyaan haddaba waxa naga go'an uu yiri dhanka kale u sheegaynaa Mareykanka inaynu ka aargudan doono dilkii shuhadadeena gaar ahaan aayatullaahi naga dhintay Ali Khamenei marnaba ma iloobi doono waa aargudanayna marka Trump ha isku qariyo Netanyahu ha aamuso annagu waa idin sii sheegayna aayatullaahi dilkiisa wallahi ka tahay inaan la isu dayn doonay ilaadeen marka afayeenka ayaa isaguna warkaasi soo saaray haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo kordhay xaaladda bariga dhexe barnaamijkaygii labaadna inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa fadlan wixii fakar iyo aragti adaysaa noo soo qora laagareeya oo sheergareeya barnaamijka ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan innagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka aanu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen inta aan mar kale kulmayno asxaabay